الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا. الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب wuxuu ku leeyahay dulmigu saddex buu u qaybsamaa. Dulmiga saddex ayuu u qaybsamaa. Kow waa dulmi u dhaxeeya adoonka iyo rabbigiis. Rabbi iyo adoonka uu abuurtay dulmi u dhaxeeya weey. إلهي وحليه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. كوا الله سبحانه وتعالى الرميي إيمان كوضنا وح ظلم عن كلهن. ظلمي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أي ويدين فوفسر آيات كاللقمان أويله إن الشرك لا ظلم عظيم. شركه وظلم آد أوين ظلمiga labaad waa dulmiga adoonka uu dulmiyo naftiisa macaasida dunuubta ka dhacayso oo qofka naftigiisa uu dulminayo ama taacadka inuu ka gaabiyo salaadihii inuu ka gaabiyo waa taacadku sabab u baahan yihiin qofka salaad subax inuu soo kaco uu weysisto oo waqtigeeda tukado waxay u baahan tahay juhdi iyo dadaal marka hadduu waxa ka soo bixi waayo taacadka Allah subhanahu wa ta'ala uu faray oo amray hadduu la iimaan waayo qofka naftiisa ayuu dulmiyay hadduu macaasi iyo dunuub ku dhacona sidoo kale naftiisa uu dulmiyay Allah subhanahu wa ta'ala markuu ka waramaayay nabi aadan iyo xawaa qaala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي وحانو ظلمني نففيال كان أيان ظلمني كتانا وظلمي أول حياة قفك إيه نفتي سأو ظلمني ظلمي سدحات وظلمي أول حياة الدوما لحظة قفك إنو ظلميه قفك كلو ولالكيس إنو ظلميه كان عجيب أي الله ذهي قفك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وحوليه هاي قفك استبا قفك ظلميه كقربح بوليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في البخاري وحق السجن من كان عنده مظلمة لأخيه أو مظلمة لأخيه قفك مظلمة له أو ظلمي ولكن سكوه هكا قربحه هد أو ما أنت اليوم هكا قربحه وإلا فلا دينار ولا درهم بري مك قيامها لا تغو دينار iyo dirham ma jiro oo qofka waxa laga rabaa dulmiga dadka kala ku sameynaysid oo waxa laga qaadayaa acmaashada wanaagsan xadiiska kalena wuxuu xadiis muflis ah oo garanaysan salaad badan iyo soom badan buu qofkii la yimid laakiin maxaa hadee ugu taala zalama hada kan buu dulmiyay wa akhadha mala hada kan maalkiisu dhacay كظلمiga walaalayaal waxyaabaha acmaasha lagu waayo oo qofka uu ku hoogayo yawmal qiyaamah saddexda dulmi aan iska ilaalino koow inaan shirki ku dhacno nacuudu billah ma qofka inuu diinta ka baxo oo ilaahay wax ka la wadaajiyo oo qabriga ku dawaafo oo dad dhintay uu bariyo oo waxa way u gowraco qofan waxa way ilaahay ahayn wax u gowraco hada kullu shirki ayuu kamid yahay qofka dabxiga lillah subhanahu wa ta'ala kaliya loo gowraca hadii wax aad bariyaysa ilaahay kaliya barya ilaahay kaliya aanu barina dhamaanteen hadii wax aan bariyayno sida daraad walaalayaal dulmiga aanu iska ilaalino ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqana waafajiyo aad umahsantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.